بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaynu ku gudi jirnaa course-ka inuu ugu magac darnay biology oo markaasi ah course aynu ku baranayno maadada biology gaar ahaan fasalka form 1 ama grade 9 casharkan waa casharka 5 iyo 7aad waxaynu casharkan kaga hadlaynaa waa classification of protists waa ablaablaynta protists-ka ayaan casharkan 5 iyo 7aad uga hadlaynaa waxaan filayaa marka 4 iyo 30kii cashar aynu horay u soo daawanay in si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan 4 iyo 30kaas casharna waad inoo soo weydiin kartaa WhatsApp nagala soo hadli kartaa ama email aad noo soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigayo ama fariintaada aad noo soo diraysid cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aal weydiiso sidoo kale waxaan filayaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladii hore ee 4 iyo 30ka ahaan in la qaatay ama kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in la raadiyo aan lagu ekaan casharadan kaliya aan lagu ekaan aan gudaha uga marka waa biology course-ka aynu ku baranayno gaar ahaan grade 9 ama fasalka 9aad ama form 1 lesson 35 waa casharka 5 iyo 7aadna waxaynu kaga hadlaynaa waa classification of protists waa ablaablaynta protists-ka markaan ka hadlayno waxay yihiin hore u soo sheegnay marka classification of protists aynu fiirino waxa la yiri biologists dadka markaasi bartay cilmiga biology-ga classify waxay kala ablaableeyeen protists ay kala ablaableeyeen waxayna u kala ablaableeyeen maxay into 3 groups saddex koox ay u kala ablaableeyeen saddex koox ay u qaybiyeen protists-ka according to ayadoo markaasi laga fiirinayo maxay their mode of nutrition habka ay u quudanayaan ayagoo ka fiirinayo dadka bartay cilmiga biology-ga waxay protists-ka u qaybiyeen saddex qaybood waxayna yani habkay u quutaan ay ka fiiriyeen mid waxay ku magacaabeen waa animal like protists oo sidoo kale waxay ku magacaabeen protozoan kuwa waxay dhaheen waa plant like protists waa biologists siday u bixiyeen way sidoo kale waxa la yiraahdaa algae ayaa markaas lagu magacaaba fungus like protists ayaa sidoo kale kamid ah yani waxa waaye mid fungaha u eg mid dhirta u eg iyo sidoo kale mid maxay xayawaanka u eg marka saddexdan ay biologists u qaybiyeen wax la yiraahdo protists aynu mid u kala qaadna marka animal like protists ayaan ku horumarayna yani protists-ka midka markaasi animal like ah animalka u eg they exist ayagu waxay u jiri karaan as free si markaasi free ahaan ay u jiri karaan si madax banaan ay u noolaan karaan way or as parasite ahaan ay u noolaan karaan yani waxa waaye in ku dul nool ahaan ay noqon karaan ama si free ay u noolaan karaan ayagu and possess waxayna leeyihiin some of the characteristics qaar kamid ah astaamaha of animals ay leeyihiin ayna leeyihiin protists way so sidaas daraadeed marka they are called waxa lagu magacaabaa protozoan magacaas la siiyaa protozoan which means ka soo macnihiisu yahay first animals xayawaanadii hore ama xayawaanadii markaasi ugu horeeyay marka protozoan sidaas ayaa marka loo siiyay sababtuna waxay tahay waxay leeyihiin characteristics ama astaamo oo animals ka leeyihiin ay markaasi leeyihiin they do not have ayagu malahan specialized systems habdhisyo gaar ah malahan ayagu oo protists-ka malahan habdhisyo gaar ah sida markaasi xayawaanada ay u leeyihiin habdhisyo kala duwan sida habdhiska neef mareenka habdhiska dheefshiidka iyo wixii la mid ah marka in sid bedelka habdhisyadooda ayagu their organelles xubnahooda yar yar ayaa carry out wuxuu qabtaa the same function shaqooyin la mid ah as organs xubnaha of higher animals xayawaanada caadiga ah ee waaweyn ee aynu naqaano xubnaha ay leeyihiin shaqooyinka xayawaanadaas ay u qabtaan protists-ka waxa u qabta organelles ayagu ay leeyihiin ama xubno yaryari ayaga ay leeyihiin ayaa markaas u qabta way they reproduce ayagu waxay u tarmaan waa animal like protists-ka way waxay u tarmaan asexually ahaan ay u tarmaan yani waxa way mid aan jinsi ahayn oo asexually ah or rarely si naadir ahna sexual ahana way u tarmaan yani sexual means qaab oo taran jinsi ah while halka some others qaar kamid ahna ama qaar kale يعني qaar waxay u tarmaan asexually qaarna sexual ahaan ay u tarmaan some others marka qaar kale oo kale ama protists kale oo animal like ah ayaa undergo waxay aadaan life cycle kuwa markaasi meerta nololeedooda ay aadaan that involves taasoo ku lug leh baf labadoodaba oo ah sexual and asexual reproduction taranka jinsiga ah iyo midkan jinsiga ahayn kuwa sameeya ayaa markaasi jira way classification marka ablaablaynta animal like protists waxa la yiri animal like protists-ka
يعني waxa way protistiska nooca markaasi xayawaanada u eg ayagu are classified wala kala ablaableeya according to iyadoo laga fiirinayo their type of movement noocooda dhaqdhaqaaqa iyadoo laga fiirinayo into four phyla afar qayb boqortooyo ayaa loo qeybiyaa afar qayb boqortooyo qaybta koowaad waxa la yiraahdaa phylum Coleoptera qayb boqortooyada Coleoptera qaybta labaad waxa la yiraahdaa ama qayb boqortooyada labaad waa phylum Sarcodina waa qayb boqortooyada Sarcodina qayb boqortooyada saddexaad waxa lagu magacaabaa phylum Mastigophora waa qayb boqortooyada Mastigophora qaybta afraad ee ugu dambeysana waxa lagu magacaabaa phylum Sporozoa ayaa markaas lagu magacaabaa yani qayb boqortooyada Sporozoa marka mid afartan mid ayaan u qaadanaynaa waxaan ku hormaraynaa qaybta koowaad oo ah phylum Coleoptera hadaynu fiirino marka phylum Coleoptera waxa la yiri members xubnaha of phylum Coleoptera ayagu are either waxay noqon karaan yani spilitary ay noqon karaan kuwa keli ah ay noqon karaan or colonial organisms ay noqon karaan nooleyaal si wadar ah u nool ay markaas noqon karaan habkay u nool yihiin marka la fiiriyo Coleoptera qaar waa spilitary way yani kuwaas keli ahaansho si gaar ah u nool qaarna waxa way colonial oo si wada jir ay markaas u nool yihiin they call it ayagu waxa lagu magacaabay ciliatis ayaa markaas lagu magacaabay because waxa yeelay sababta lagu bixiyay waxay tahay they have ayagu waxay leeyihiin cilia ay leeyihiin oo markaas ah singular cilium ah marka cilium wuxuu yahay isaguna waxa la yiri cilia ayagu waa plural way singular keedu waa cilium waa short hair like projectionist way yani waxa way shay sida tinta oo kale u eg oo meel ku dhigan way that produce kaas oo soo saara movement dhaqdhaqaaq in water ee biyaha ana helbis wuxuuna ku caabiyaa in food capturing in cuntada lagu qabsado ayuu markaas ku caabiyaa protistaha waxa way cilia wuxuu ku caabiyaa in cuntada uu ku qabsado waana hair like way shay sida tinta oo kale u eg way most ciliatis marka inta badan ciliatiska ama Coleoptera ayagu are free living kuwa si madax banaan u nool way ilaa waxaynu horay u sheegnay qaar waa spilitary way qaarna waa colonial way as well studied example tusaalaha ugu fiican ayaa inuu ka soo qaadan karno cilia ama ciliatiska waa Paramecium nooleyaashaas lagu magacaabo waxa uu example u yahay ciliatis ama Coleoptera iyo tusaale u yahay phylumka labaad ama qayb boqortooyada labaad waxa lagu magacaabaa phylum Sarcodina ayaa lagu magacaabaa the phylum Sarcodina qayb boqortooyada Sarcodina ayadu contains waxay ka kooban tahay protists ay ka kooban tahay that use kuwa soo isticmaala temporary projections waxyaabo ayaga ku dhigan oo si kumeel gaar ah ugu dhigan taasoo laga helo cytoplasm laga helo to move so u dhaqaaqo and feed una markaas u qooto such projections marka waxyaabaha ku dhigan Sarcodina ayagu arcolet waxa loo yaqaanaa pseudopods ayaa markaas lagu magacaabaa which literally means kaasoo macnihiisu yahay false feet yani si qaldan ay markaasi feet way sorry yani cag oo markaasi qaldan ay leeyihiin luga beenaad way Coleopteriska one major family mid kamid ah bahaha hoos yimaada Sarcodinaha waa amebas way marka ameba muxuu yahay ameba waxa flexible way yani shay flexible ah oo qaab waliba oo markaasi dhaqdhaqaaqayo yani flexible ah dhan walba aadi kara way active cells way waa unugyo active ah oo shaqeynayo waxay shaqeyn karaan without cell walls ay shaqeyn karaan gidaar unugeed la'aan ay shaqeyn karaan sidoo kale waxay shaqeyn karaan without flagella cell la'aan ay shaqeyn karaan cilia oo hair like wixii aan soo sheegaynay and even hataa waxaysan lahayn definite shape qaab oo rasmi ah without definite shape way yani shape oo rasmi ah ma lahan way others marka other Sarcodiniska kuwa kale waxa way include waxay isugu jiraan kuwa lagu magacaabo Foraminiferans kuwa markaas lagu magacaabo waa nooleyaal ka tirsan Sarcodiniska way qaybta kale aan aadayna oo saddexaad oo markaas hoos timaada animal like protistiska waa Mastigophora way waxa la yiri phylum Mastigophora ayagu consist of waxay ka kooban yihiin animal like protists ay ka kooban yihiin that move kuwa soo dhaqaaqa waxayna ku dhaqaaqaan through the water ay ku dhaqaaqaan biyaha dhexdoodii ay ku socdaan way by means of flagella waxaan u fududeynaa maxay flagellaha ama saynta iyaga ay leeyihiin ayaa markaas u fududeey yani noocan oo animal like protistiga ah biyaha dhexdooda kaliya ay markaas ku socdaan way the number of flagella marka tirada flagellaha ama saynta ay leeyihiin ayagu various way kala duwan tahay from one Mastigophora to next hal Mastigophora marka loo fiiriyo midka kale isaga ku xiga this phylum marka qayb boqortooyada includes waxay isugu jiraan Trypanosoma Leishmania Giardia sidoo kale Trichomonas ayaa kamid ah soo marka labaan ka soo qaadanayna oo Trypanosomanist waxa la yiri
ayagu are parasites way waa ku dul noole live in kuwaas oo ku dhex nool blood ay ku noolyihiin dhiiga oo fish kalluunka dhiigiisa laga helaa trypanosomeska amphibians ayaa laga helaa barabiyoodyada reptiles ayaa laga helaa xamaaratada and mammals iyo naasleyda dhiigooda ayaa laga helaa waana parasite way ku dul noole waaye waxa uu kamid yahay mastigophora oo markaasi kamid ah animal like protistiska qaybka ah leishmania ayaga waa parasite way waa parasite ama waa ku dul noole dad causes ka soo sababa disease ayuu sababa cudur oo koolad loo yaqaano leishmaniasis ayuu markaasi sababa markana waxaan aadaynaa qaybta afraad oo markaasi ah animal like protistiska qaybaha hoos tagta oo markaasi ah sporozoa ayaa markaasi lagu magacaabaa the members marka xubnaha oo the phylum Sporozoa ee hoos tagta qayb qortooyada Sporozoa ayagu waxa la yiri non motile waa kuwa aan dhaqaaqaynin way waa kana waa la sii sharxay which means ka soo macnihiisu yahay that they do not move ma sameeyaan wax dhaqaaqa ma sameeyaan yani qaybtan oo Sporozoa ayaga non motile way ma dhaqaaqaan all Sporozoans marka dhamaan Sporozoans ayagu are parasites way ku dul nool way on a wide variety waxa way kala duwanaansho aad u weyn of other organisms ay ku leeyihiin nooleyaasha kale including waxa kamid ah worms koryaanada insects cayayaanada fish kalluunka birds shimbiraha and humans iyo bini'aadanka yani waxa way mortal ay sameeyo dhaqaaqa laakiin kuwan waxa way parasite way ayagu waxa way yani waxay yihiin kuwa markaasi non mortal ay yihiin many Sporozoans marka Sporozoans intooda badan have complex life cycles waxay leeyihiin meerto nololeed isku dhisan ay leeyihiin that involve taasoo ku lug leh more than one host in ka badan hal martigeliye hoos waxa la yiraahdaa martigeliye marka lagu magacaabo Sporozoans ayagu reproduce waxay u tarmaan by means hub oo markaasi spores ah inay wax markaasi hawadaas ay ku sii daayaan qaabkaas ay u tarmaan atypical Sporozoan nooca Sporozoanka inta badan la yaqaan waa Plasmodium way kaasoo which causes sababa the human disease cudur bini'aadanka ku dhaca oo markaasi ah malaria iyo markaasi sababa waxaan filayaa markii casharkan wax badan laga fahmay markana waxaan aadaynaa questions oo markaasi ah su'aalaha casharka su'aasha koowaad waxa la yiri parasiteska markaan ka hadlayno ama protistiska markaan ka hadlayno ayagu classified waa la kala ablaableeya intuu waxa loo kala yani according to iyadoo loo fiirinayo maxay their mode of nutrition habkay u quudanaya into 3 saddex ayaa loo qeybiyaa wad arday maxay kala yihiin su'aasha labaad waxa la yiri animal like protistiska also known as sidoo kale waxa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa سؤال سدحد واحد ليه animal like protists أيوه can be classified واحد local ablaablayn كرا into 4 file أفرق بقرطوية local ablaablayn كرا what are they محيين سؤال كلا أفراد واحد ليه why Celiophora called celiatis محا Celiophorus كلوجو مجا Celiophora لوجو مجا دري مجا صح celiatis clarify سؤال شرط why واحد عديسات the meaning of celia سؤال الأحد واحد ليه what are tribosomes محلي هذا tribosomes سؤال الثالث واحد what the meaning of non-motile معناه ده محوي سؤال السادس واحد ليه how the Sporozoans reproduce سيدي Sporozoans أي أترمان سؤال السابع واحد ليه give an example of Sarcodina واحد كده تصالح Sarcodina شيء سؤال طبعاً واحد ليه Plasmodium is an example of what Plasmodium توحد تصالح يهي يعني قيب قرطوية دي أيو تصالح يهي محونه السبب كراوي واحد في العمر كان 10 كان سيف على فهمي انت انكو سو gabagabeynayna 10 kan inta inuu kulmi doono 10 kan 10 xigana waxaan idinkaga tagaynaa sidaa nabadino wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh